السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان ولا لها مسلمين تا ميلو الباد جوكتان إلهي سبحانه وتعالى أيام هاتسكاله حمدي أودان الله أسقناضي waxaana loo abuuray ilaahay inaan caabudno subxaanahu wa tacaala. waxaana ognahay markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na abuuray in aan sidoo kale aanu ognahay inaynu dhimanayno oo noloshan adduunyadu ay tahay mid imtixaan ah oo markaa qof kasta oo nool oo naga mid ahna wuxuu og yahay inuu geeriyoonayo. maalinta aan dhalanay ayaa waxaana lagu xukumay geeri. dadka iyaga ayaan ogeyn maahay qof walba waa uu xukuman yahay, waxa uu ku xukuman yahay geeri inuu geeriyoonayo. laakiin waxa kala duwan qaabka loo geeriyoonayo, waxa kaloo kala duwan iyadana qaabka loo nool yahay ama loo noolaanayo. horta qofka inuu is-hoos dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku leh. inta ka hartay insaan ahna waxa uu sharaf ku leeyahay qofka inuu ku noolaado sharaf. waxaan rabaa laba arrin inaan ka hadlo insha allahu tacaala anoo waqtiga soo koobayo. arrinta koowaad waxaan rabaa inaan marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u barino walaalkeen Fuaad Yuusuf Cali inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ka saaro. waxaan la dareemaynaa xanuunka haysto. waxaa xanuuna qof muslim oo walaalkeen inuu suuli ka soo kaco. qofka waa la xiri karaa, qofka dembi baa lagu soo eedeyn karaa, qofka waa la xukumi karaa, laakiin cadaalad maaha qofka in la bahdilo. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qofka muslimkaa sharaf u yeelay. sharafta ilaahay qofka uu siiyeyna in laga qaado sax ma ahan. marka laba arrin baan rabaa inaan ka hadlo. arrinta koowaad waxay tahay sidee tahay in looga jawaabo falkan. reer Jabuuti iyo Soomaalida oo dhan iyo qof kastoo muslim ah xaaladda uu ku jiro walaalkeen sidee tahay inaynu uga jawaabno. waxaan kaloo rabada iyadan inaan ka hadlo maxaa nala gudboon qof kasta oo muslima oo nool maxaa la gudboon. horta waxaan rabnaa inaan isla ogaano qof kasta oo muslima Fuaad Yuusuf Cali qof kasta oo arrinkiisa arkay maqlay waxaa waajib ku ah inuu ka danqado oo uu dareemo. kow, ilaahay waxa uu yidhi innamal mu'minuuna ikhwa, mu'miniintu waa walaalo. laba, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka aya danqinin arrinta muslimiinta ama arrimaha muslimiinta nabiga wuxuu leeyahay nagama mid ahan. nabiga waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam muslimiinta waa sida hal jir oo kale. laakiin waxaan rabaa inaan horta Soomaalida la hadlo intaan reer Jabuuti la hadlin. Soomaaliyay mid baan idin leeyahay, ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala beenta iyo ruwaayadda joojiya. ilaahay ka baqa oo cadaaladda ha ka tegina. inna allaha ya'muru bilcadli walixsaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaalad buu na farayaa. in la isku ixsaan falana ilaahay wuu na farayaa subxaanahu wa tacaala. bal waxaan rabaa Soomaalida siyaasadda ku qufulan inaan iska saarno, xaqiiqda aan u soo jeedsano. qaar badan oo Soomaalida waxay kala garan laayihiin Cumar Geelle iyo Jabuuti. Soomaalida qaar badan waxaa iskaga qalday Ismaaciil Cumar Geelle iyo waxaa iskaga qaldan Jabuuti. Soomaalida horta kala fahmaan Cumar Geelle waa shakhsi, Jabuutina waa dal iyo dad jiro. Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ka mid yahay reer Jabuuti. ilaahay baa u gartay inuu maalin madaxweyne noqdo isagoon ka caqli badnayn, isagoon ka xoog badnayn, isagoon ka awood badnayn. baa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa Cumar Geelle wuxuu u gartay inuu madaxweyne ilaahay ka dhiga subxaanahu wa tacaala. sabab kasta ku yimaadee waxaad kalood ogaataan arlada ilaahay subxaanahu wa tacaala baa iska leh. ina alarda lillaah yurithuhaa man yashaa'u min cibaadihi. arlada ilaahay baa iska leh, addoommadiis qofkuu rabo inuu u dhiibaa, qofkuu rabo madax ka dhigaa, qofkuu rabo ma aragtay ka dhigaa, qof walba meeshuu doono ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa siiyo. laakiin Soomaaliya ogaada, haddii Jabuuti abaal aad u haysaan oo Jabuuti abaal idiin gashay macnaheedu maahan Cumar Geelle inuu abaal gaara idiin galay. haddii maalin carto shir la idinkugu qabtay oo Soomaali isku keenay waxaad ogaataan waxa aad cunayseen maalinta la isku keenay shirka la idiin qabtay xoolaha ku baxay Cumar Geelle bangi uu leeyahay akoon asaga uu leeyahay kama soo saarin ee waa xoolihii reer Jabuuti. waxaana wax ka ah dadka maalintaas maalkooda iyo xoogooda caqligooda Soomaalida iskugu keenay Fuaad Yuusuf Cali xoolihiisa qayb ka ah. Soomaalida horta taas oo ogaato.
waxaad kala ogaataan xitaa qaarkiina Cumar Geela jecel Ismaaciil Cumar Geela u hiilinaya waxaad ogaataan nabigu inuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka dhaliman aw matluma walaalka markuu qaldan yahay inaad ka aamusto ma ahan waxaad aragteen qof muslima oo shahaadanaya oo walaalkiina oo suuli ku dhaxiran adiga naftaada ka soo qaad ka waran adoo suuli lagu xiray musqul dhexdeeda seexda meesha wax ku cuna meesha ku cibaadaysanay meesha aad ku nooshaa ay suuli tahay naftaada meesha ka soo qaad qofka waxa iskugu sameeyay muxuu ka mudan yahay dadka kale ee muslimiinta walaalaha maxaad ka rajeeyaysaa adoo xiran oo suuli ku jiro oo nolol qof uu ku jiro tan ugu liita ku jiro maxaad ka rajeeyaysaa dadka kale ee ayaga aanan ku jirin xaaladaas maxaad ka rajeeyaysaa naftaada meesha dhig Soomaalida marka waxaan leeyahay war intaad Ilaahay ka baqdaa subhanahu wa ta'ala horta waxaan rabaa dadka Soomaalida waxay aad ugu celceliyaan oo ay dhahan reer Djibouti waxa la idin la rabaa sida Soomaaliya ku dhacday waa handada taas reer Djibouti ba handadaysaan dadka aqliga leh ba handadaysaan reer Djibouti dadka aqoonta leh reer Djibouti ba handadaysaa hooyada miskiinta reer Djibouti dulman baad handadaysaa aabaha miskiinka reer Djibouti dulman baad handadaysaa marka dhacday Soomaaliya ku dhacday ayaa la idin la rabaa dawladiina iska burburina war dawladda la burburina laguma oran Djibouti la burburina lama oran ee reer Djibouti dulmi bay ku jiraan waxa daliil u ah qaybka inta ugu yara maanta arkaysa waxa qaybka xaaladda uu ku jiro Fuad haddaba waxaan ku sheegayaa Soomaaliya goorta ay burburtay ee dulmiga uu ku dhacay ma ahan 91 1991 ma ahan Soomaaliya markay burburtay Soomaaliya markay burburtay waxa ahayd markay culimada inta la dilay laga aamusay marka inta cadaalad darro dhacday laga aamusay marka inta la isdulmay laga aamusay waa maalintii dulmiga uu bilowday ee ma aha maalintii burburka uu dhacay dadku isku qaldayaan maalinta burburka uu dhacay ee Soomaaliya inay burburato dawladnimadeedii baaba'do ma ahayn maalintii ee qaxa iyo dagaalka uu bileeday 1991 ma ahan Soomaaliya waxay burburtay maalinta inta cadaalad darro ay dhacday qof muslima la dulmay ee aan ka aamusnay kulli la daawaday maalinta culimada inta la baabi'iyay aan arkaynay dad badan oo Soomaaliya arkayeen ay maqlayeen ay ka aamuseen guriyooda iska joogeen idaacadaha ay ka dhageysteen oo ay maqleen ay kala jeclaysan maalintaas bay Soomaaliya burburtay waayo waxa raalli ka noqotay cadaalad darro waxa raalli ka noqotay dulmi maalinta raalli ka noqoto qof walba ayuu dulmigaas ku dhacaya Djibouti waxay burburaysaa marka Fuad xaaladiisa inta la arko reer Djibouti ay aamusaan maalintaas ay Djibouti burburaysaa ana hadda kule Djibouti baabeeda iyo halaageeda wuxuu bilaabmayaa maanta markay reer Djibouti aamusaan reer Djibouti markaysan ka danqan dhibka loo geystay Fuad maalintaas ay Djibouti baaba'aysaa oo ay burburaysaa ma burburaysa marka reer Djibouti intay hadlaan oo ay ka dhiidhiyaan waayo qof kasta oo u dhinta dulmiga loo geystay walaalkii ma dhimane Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu raalli ka yahay buu sameeyay mar walbana qofku uu dhimanaya marka waxaan leeyahay qof kasta oo reer Djibouti ah iyo qof kasta oo muslima qof kasta oo Soomaaliyeed dhibkaysa walaalka muslimka laga danqado wuxuu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo wuxuu xaq u leeyahay qof walba inuu amni ku noolaado wuxuu xaq u leeyahay qof walba inuu sharaf ku noolaado waayo Ilaahay baa karaameeyay in karaamada laga qaado qof muslima la ihaaneeyo dhibaato loo geysto suuli lagu xiro war ma meel lagu xiraa la waay qofka dambi walba uu galo wuxuu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo qofka dambi walba uu galo wuxuu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo ma meel lagu xiraa la waay Ilaahay baan idinku dhaariyay ma meel lagu xiraa la waay suuli markuu ku xirayo markuu suuli ku xiraa ogtahay caafimaad ahaan aysan wanaagsanayn sumcad ahaan aysan wanaagsanayn bahdil inta la eg qof muslima walaalka in loo geysto oo aad dhahdo reer Djibouti dawladiina baa Djibouti sida Soomaaliya ku dhacday idinku dhicin sida Liibiya ku dhacday idinku dhicin sida hebel wareeg waa la bedelaa qofka dadka dulmo waa la iska qabtaa qofka dadka dulmo Ismaaciil Cumar Geela dulmiga ku dhacay Fuad Yusuf Cali haduu raalli ka noqday waxay reer Djibouti mudan inay iska qabtaan waayo dulmi markuu dhaco dadka bani aadamka
nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu tusaale u soo qaadanayo dadka wuxuu ku tilmaamay inay la mid yihiin si dad doon laba dabaq le saaran xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam qola ay saaran tahay dabaqa qaybta sare ee doonta ay saaran tahay qolana qaybta hoose ay saaran tahay ka war haddii qaybta hoos saaran ay doonta duleeliyayaan ay rabaan inay biyo ka soo gasho doonta laakiin qolada kale ay arkayaan Allahu akbar oo ay leeyihiin maxaa inaga galay inaga kor baan saarannahay qolada hoos iyaga biyo isku soo dayayo laakiin maxaa dhacaya ma garanaysaa doonto dhan baa qalimaysa inta biyaha saaran oo inta doonta saaran oo dhan biyahaas ayay ku baaba'ayaan reer Djibouti kulli doon baad saarantiin kulligin hal doon baa saarantiin Fuaad caawa hadduu suuli ku seexday xalay uu suuli seexday reer Djibouti kulligin suuli baad jiiftaan caawa reer Djibouti kulligin والله او بالله او تالله قلبي اذا كلا هدليا جيبوتي انا دب لا ربين جيبوتي بانا بربر لا ربين جيبوتي بانا دب لا ربين هل مالين قف ري جيبوتي انو دبتوده والله انا ربين لكن والله انا رالي كنقونين قلبي waxa ugu yaraan sameyn karo waa ina afka ka hadla qalbigana ka danqada wallahi maalinta aan arkay walaalkay Fuaad Yusuf Ali xaaladda uu ku jiro ilaa maanta qalbigii uu gubanay maalinta aan arkay walaalka dhibku uu ku sugan yahay ilaa maanta qalbigaygu gubanayay sababta ma garanaysaa war naftaada ka soo qaad bahdilaad in lagu sameeyo aflagaaday ku tahay dadka reer Djibouti reer Djibouti haddaad raalli ka noqotaan waa maalinta aad raalli ka noqoteen in dalkiina la burburiyo maalintaad raalli ka noqotaan Umar Geelle Ismaaciil Umar Geelle wuxuu ku sameeyay Fuaad maalintaad ku sabartaan waa maalintaad raalli ka noqoteen Djibouti inay baabado waayo carada Ilaahay baa baabiinaysa subhanahu wa ta'ala wallahi carada Ilaahay baa ku dhacayso baabiinaysa mar qof muslima oo ashahaadanay oo walaalkiina inta suuli la geliyo lagu xiro lagu bahdilo oo aad raalli ka noqotaan adinkoo ka baqaya inay dhib yar dhaco maalintaas Ilaahay dib idin ku ridaya subhanahu wa ta'ala war wallahi qofka inuu geeriyo u qorantaay uu geeriyoon qofka in la xira ay u qorantaay uu xirmaya laakiin Ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala walaalka dibka loo geystay ka dhidhiya oo hadla arabka Ilaahay idima tire hadla banaanka u soo baxa guriyihiina seexanina u hiliya walaalka war maalin baad geeriyoon sidaad maalin u dhimataad maalin u geeriyoon لكن ذلنمها كن نولاننا صوماليها إسماعيل عمر جيلي يددك حيلك لها محي كل كوهن جبان ما تقرنيسا سيدا صومالي كل أعضاء إذن كل عيسى دلكينا هيسكا بربورينا صومالي وقتي بربورتان إذن شيء غير جيبوتي دقيستا صومالي وحي بربورتان مركا انت علماء اللبابي أي آموسين دادك صوماليات 1991 ما هين صومالي waxay burburtay marka qolo yar oo dadka kamida cadaalad darro ay sameysay ama siyaad barro cadaalad darro sameeyay ama dad yar oo dadka kamida cadaalad darro sameeyeen ee ay museen haday Soomaalid iyagoo walaalo ah oo gacmaha isaysta maalinta ay diidi lahayeen wixii ay sameysay dawladii maalinta jirtay ay kulligood banaanka soo istaagi lahayeen wallahi Soomaaliya tan maanta ka dhacdinaysa ka dhicin baan rajaynaya baan rajo weyn ka qaba may dhici lahayn لكن رالب وريغا هل قف مالنتاد idinka aamintaan oo aad ka baqdaan Ilaahay baad u gafteen subhanahu wa ta'ala hal qof dulmi idinku haya maalintaad ka cabsataan oo aad dhahdaan waa la idin xiri waa la idin dili dalka idinka burburi xubbu dunya qulubtiina ay gasho jacayl adduunyada aad u qabtaan qulubtiina ay gasho maalintaas dalkiina burburaya carada Ilaahayna idinku dhacaysa reer Djibouti war qof muslima waxaan idin sheegay jeebkayga maahan qof muslima oo walaalkiina oo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku ashaato baadalkiina nin muslimo walaalkiina suuli dhexsaxiyay wallahi wax uu idin reebtay malahan maanta Umar Geelle wax uu idin reebtay mal waliga Ismaaciil Umar Geelle kama hadlin waliga arin Djibouti kama hadlin laakiin wallahi tan wax laga aamusi kara maahan ilaahay idima ciqaabe ilaahay idima duleeyay dad bu ilaahay idinka dhigay waxna ka aamusina Soomaaliya idinkana ilaahay ka baqa war waxa idin caawiyay hal qof ma ahanay reer Djibouti baa idin caawiyay Soomaaliya ورير جيبوتي بقى إذن عاوية حواليه رير جيبوتي واحد إذن كوكو قبتي حواليه رير جيبوتي بقى شرلا إذن كوكو قبتي حواليه رير جيبوتي بقى إذن كوكو قلقاري مسمعوا العمر قال ما قناع صدا مسمعوا العمر قال ما بقار جيبوتي أفرم با جيبوتي وحا إسكالا رير جيبوتي ودن إستيغي كليجي ملهن إستيغي كليجي ملهن إسماعيل عمر قال دور سنبو رير جيبوتي دول فديي buu dulmay buu ku xadgudbay wuxuu aaminay dadka meesha joogo dhan inay baaba yihiin wuxuu aaminay inay dul yihiin wuxuu aaminay inay dadaan waxba ka jir ahayn
dulli iyo dad aan jirin buu ka soo wuu ku xadgudbay wuu aflagaaday reer Djibouti istaaga oo Fuad u hiiliya haddii uu run sheegay Ismaaciil Cumar Geele intuu soo istaaga hadhaho waxa dhacay waa khalad waa lagu xadgudbay Fuad waa lagu xadgudbay dulmigana waan joojinayaa siday wax tahayna wax waa laga bedelayaa hadhaho awood baad leedihiin haddii isagoo kaligiisa intaa uu sameeyay idinkoo dhowr milyan ah imisaad samayn kartaan reer Djibouti imisaad qaban karaysaan imisaad tari karaysaan war Fuad u istaaga ilaahayna ma fasahadiye ilaahay caradiisa naguma soo dejiyo wallahi ilaahay subhanahu wa ta'ala wa fa'alu lima yurid wallahi ilaahay Fuad ma mooga waxa uu ku sugan yahay ilaahay ma mooga dibka lagu hayo Fuad iyo qaar badan oo lamida war hadii Fuad kaligii uu intuu soo hadlay uu idin tusay xaaladda uu ku sugan yahay imisa reer Djibouti aba dib ku sugan oo aan awoodin sida Fuad oo kale inay u soo hadlaan markalan idin xasuusinaya Soomaaliya iyo dal walba oo burburay ee la idinku cabsinaya ee la idin leeyahay sida Soomaaliya baad u burburaysaan walaalayaalow dalalka burburay wadamada burburay waxay burbureen markay dadkooda dulmiga raali iskaga noqdeen ka waran marka inta culimo Soomaaliyeed la soo la dilay la toogtay waxa loo toogtayna ay tahay maxaad u hadasheen loo toogtay marka inta culimo Soomaaliyeed oo muslimiina oo ashhaadanayo oo leh laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah la toogtay la dilay ay dadku dhanna aamuseen maalintaas bay Soomaaliya burburtay maanta muslim walaalka ah oo reer Djibouti ah oo kugu dal ah oo kugu diina oo kugu maqaara haddaad xitaa Ismaaciil Cumar Geele taageersan tahay ilaahay baan kugu dhaariye dulmiga ha taageerin shakhsi waad jeclaan kartaa sidoo wax u qabtaad ku qanci kartaa laakiin dulmiga ha ku qancin ilaahay idima duleeye rabbi idima duleyn reer Djibouti oo dad damiir lebaatiin dad dadnimo lebaatiin wallahi in badan baan reer Djibouti ka arkay in badan baan reer Djibouti ka aqaana in ugu filan reer Djibouti waan ka aqaana dad naxariis lebaatiin dad akhlaaq diin iyo iimaan lebaatiin laakiin dulliga ha aqbalina ilaahay idima duleeye dulliga ha aqbalina nolol dulli ah kun habeen oo aad ku noolaato nolosha ayga waxa kaaga roon hal maalinood nolosha libaaxa ku noolaato warninka muslimka ah la soo daayo warninka ninka laga qabto ilaahay ka baqa ninka labadooda kaliya ma ahan wuxuu xoog u sheeganayo xoog wuxuu ku takrifalaya awoodu ilaahay siiyay dawladnimadii ku takrifalaya war qofka hadii shakhsiyan kula dagaal waad ka dhicin karaysaa laakiin ka waran qof awood dawladnimo kugula dagaalayo qof awood dawladnimo kugu dulminayo warninka nin isku halaynay Ismaaciil Cumar Geele baa dulmiyay cadaalad lama saarin maxkamad lama soo istaajin dambi uu galayna lama soo bandhigin ee waxa loo dilayaa loo bahdilayaa wallahi isagoo la dilaa u dhaantay sida loo galay suuli baa la seexiyay ilaahay baa idinku dhaariyay soo bani aadan maahan war bisad baan istaahil in suuli la seexiyo bisad baan istaahil in suuli la seexiyo markaabay qaarkood waxay leeyihiin dalka iska burburina war dadka idin haray maxay tahay sharafta idin hartay maxay tahay عزيجي شرفت إلهي نجمع قاده عزيجي شرفت إسكا قادنا ورعزيجي شرفت إسكا قادنا نكا إسكا قبتا والله إذا كنت نبو شرفت إذا كقادي رجبوتي نبو شرفت كقادي خف رجبوتي مركو شرفت كقاده ورمرايكن كو حكد عي ودار كيسان هل نين أو مرايكن نبلو جيسي بمجالك كسو مرايكن كتا لجيسي حنواي إلا نينك اللي قبطول لحيرو أسكرتي دباتل أوجيستي إسكدا حتى كوي أركي بالحكومي ورسك قبطة إلهي إذن مدو اللين إلهي عز بو إذن يالي إلهي شرف بو إذن يالي إلهي قيم بو إذن يالي إلهي مسلمين بو إذن كدقي إلهي عقلي عز بو إذن سي إذن كايسك خادنا هيزدو اللينا ورمالين باد نمانيسان مالين باد نلاتين إلهي عزبو ندين ريجبوتي استاغا هيزدو لينا انيكا اسكا قبتا والله ما اوغيدين اود بان ليديهين وحلمتين دولكي دول غرنين ويمد
ذو القرنين دول كويمد أودو دي أن أوجين بلمتهن دول بويمد أود له هنتي هيسا حولا هيسا عقل له عقل له لكن أنكور قبنو حي هيستان والله إسماعيل عمر قال مالي عضبو عرريا مركات رنتا أشيكتان إلهي هكبقو ورعيد ربطا مالها يساقدتك هدايو ورنكا وحلقو هيسادتك دا ورشالي علمادي بو حريا إسماعيل عمر قال محوية ورمان تدتك بو حريا ورمان تدتك بو سولي قليي ورإلهي كبقى سبحانه وتعالى ورإلهي كبقى سبحانه وتعالى وردل والبقو بربري وحا بربري وعدالة حمو دل والبقو بربري والله عدالة حما بربرسي عدالة حما بربرسي شرف درها بربرسي ورقبر يرو ري جيبوتيا او ييسو او له دلكيغا وان جعلهي لكن دولينيما كوما نولانايو war eeg dadka reer Djibouti heer waxa la gaarsiiyay ay xitaa dadku qurbi joogta ay heli karin war xitaa qurbi joogta ka baqayso Ismaaciil Umar Gele subhanallah xitaa war Soomaalida qaarkood baa xitaa ka baqaya war xitaa qaarkood baa ka baqaya war Ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala war Ilaahay ka baqa rizqina Ilaahay baa haya naftiina Ilaahay gacantiisa bay ku jirtaa war Ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala war dhulliga ha ka aamusina war dhulmiga ha ka aamusina war qiimaha qofka muslimka ah wallahi kacbada oo la burburiyo waxa ka dhibaato badan Ilaahay agtiisana kaga dambi badan qof muslima oo la sharaftiro oo la dilo oo la dulmo war ka waran maanta xaaladda uu ku nool yahay Fuad Yusuf Ali hadda tahay beer wax dhalay hadda tahay waalid wax dhalay إلهي بان كوكو داريا عاومات سيحان لهيد ويلكاغو سولي دحوردية مات سيحان لهيد مات هوردي لهيد إنما قمي لهيد ويلكي عطنا شيء أو سولي دحجيفة سولي لغو صعد حري لغو بهدي لي ورمعيد بودي لي مدد بو قرحيي متولوين بو بربوريي ما أمد دنبيجي انتا لاغو نيكا جيسم حيتا دنبيجي انتا لاغو جيستي سولي لغو دحري محيتا وكاود بدنهاي wax kala ma وكاود بدنهاي dawladnimadii aan gacanta ku haysta wax kala maahan dawladnimadii ayaan gacanta ku haysta qofka bani aadamka wax lagu caabidiyo lagu dulmiyo waxa ugu xanuun badan dawladnimadii lagu xanuujiyo Fuad waxa lagu dulmay waa awoodda reer Djibouti waa awoodda qofka Djiboutiyaanka waxa lagu dulmay وقوة إلا أن أود إسماعيل عمر قال كرسي وكفر رير جيبوتي بقى إسكالا إساقا ملهن جيبوتينا معهن قوري هو يدي أيلا ده هاي ما أبي اللي هاي معهن ورنيكا إسكا قبتا هداد ربتين دلكين إنو بدبادو هداد ربتين جيبوتي إنيسان إذا كبر بورين هداد ربطان إني تاريخ ذا بال مقدي أذن كقلين رير جيبوتي وما أنت إستبا قبتا وروحاني قولا إذن كهر ريسا صومرتي داد إذن كهر ريا ظلمي غرهالي كالنقضي صومالي أنا كوكا ماركا علماء انتلا دي لأيكتان marka dad inta la xirxire eegtaan خلاص maalinta ay kaceen mad garanaysa Soomaalida dalkoodana uu burburay waa maalinta ay jabhadaha hogaamiyay markaasay la dagaalan kaligi taliski war ma waxaad rag u sugaysaa reer Djibouti inay jabhada idin hogaamiso kacdoonka wuxuu guuleystaa mira dhala markay shacabka ay hogaaminayaan laakiin markay jabhada hub wato ay hogaaminayaan markaasuu dal burburaa maalinta culimada la dilayay haday Soomaalidu iska celin lahaayeen hogaankii markaa jiray dalkeena ma burburi lahayn Soomaaliya ma burburi lahayn laakiin ma garanaysa markay kaceen waa markay qabaa'ilo markay hor kaceen iyo siyaasiyiin dana wata markay hor kaceen maanta waxaad rabtaa in Djibouti jabhada idin hor kacaan ma siyaasaad rabtaan in la idin hor kaco oo jabhada idin hor kacaan oo la idin hogaamiyo miyaad rabtaan kacdoonka shacabka dibka mu'minka loo geystay markay dadku ka danqadaan markaasuu kacdoonka qiimo yeelay intifaada qiimo leh markaasay noqonaysaa uprising qiimo leh markaasuu noqonaya kacdoonkiinana markaasuu miro dhalaya ha sugina inta shakhsi dana leh uu idin hor kaco uu Djibouti isbedel ka keeno markaa Djibouti-nimadii iyo dalkii Djibouti ee aan jecelnahay qiimaha leh markaasuu burburaya laakiin Djibouti goormuu badbaadaya ma garanaysa yalla idin kuga hanjabin
والله وبين يلا إذن كوكا هنجبين هدان ما أنت كعلان سيد صوماليا إذن كون عيسى صوماليا وحي بربرتي مركلا إذن كو علينا ريجبوتيو مركا يدول ميقرها اللي كنقضين سيدا ما أنت فؤاد لقوها يوكالي مركا علماء انت بربورية لا ديلي ادي قودي لا دادي أي صومالي دو سحرين maxay iga galaan oo amni baan haystaa ilmahaygan way in nabad qabaan maalintaasay Soomaaliya burburtay may burburin maalintii 91 may burburin shagaasini koodi burburkii baa ku fiday dhibaatadii baa ku fiday carada ilaahay baa ku siqday reer Jabuuti maanta walaal muslima ashahata la ilaha illa allah muhammadur rasulullah كأشات أي سولي لسحي وبهدلات وذلي وشرف درو وقيمة درو ورينو سن قيمة لهين شرف لهين إساقي إدادك واسي مادبا ديبك مسلم كاللوغ جيستي ميادن قدن قنين ورداد جبوتي جعشاي فؤاد جعلو هداد جبوتي ورلك محوط ترى يا هدي دادك كنا ليسن قيمة شرف كنا لين وروح قيمة للك ما هني ودادك للك وحا قيمة ويالو ودادك كنا وشرف كنا لاد للك وحا قيمة ويالو dhul walbo qiimo leh dadkiisu markay amaan iyo cadaalad helaan buu dhulkaas qiimo yeeshaa dhul wuxuu qiimo ku yeeshaa dadka ku nool markay waxbarasho haystaan markay caafimaad haystaan markay cizi ku nool yihiin markay cadaalad helaan dhul dadkii ku noolaa musqulaha lagu xirayo war meel buu ku xirmiyo waay war xitaa hadda qofka xirayso intaad cadaalada ka hor keenayso war meel aad ku xirtay miyaad weyse إلهي بان يدكو داري وردتك قربها كنولو ورقالدي با أمان كهشان قالدي با عدالت كهشان قالدي با كهشان عافيمات يمالات كنولاتان مسلم إذيكو كلا وأشهادنا إسلامنا إذا الله شيغانا بسولي ولكن كحري مركزات هالي كانوا قنيسان ورإلهي كأن كبقنا سبحانه وتعالى صوماليي نيكا مرايكا كاللقود دي وادود دنقتين دقاقين aad buu u yar yahay Ismaaciil Umar Geelaad ka xishoonaysaan Ilaahay ka xishooda Ismaaciil Ulig waxa leedin abaal buu noo galay war abaal reer Jabuuti baa idin galay Fuad baa abaal idin galay Fuad Yusuf Ali dad kala mid ah abaal idin galay cashuurti reer Jabuuti xoolahi reer Jabuuti maalka reer Jabuuti dhulka reer Jabuuti baa la idin ku soo dhaweeyay baa dawladnimadiini wax tarkiina qayb ka noqotay laakiin shakhsi wax idin ma tarin haddii wax la idin taray حوله رير جيبوتي با خليدي كوكو تري فؤاد بانا خيبكا فؤاد با دنبي غلي ور هدو دنبي غلي عدالت ميوسن حق لهين ور ميوسن حق لهين انه شرف كو نولادو ور الهي كبق سبحانه وتعالى ور ظلمي غرالي هكا نقونينا ور ظلمي واد اوغتيهن ميشا وددغي ومدا نغا هوريي بو ظلميغا بابيئيي انغا نونا بابيئين دولده خوغ له بو ظلميغا بابيئيي ومدا خوغ له بو ظلميغا بابيئيي الهي بان idinku dhaariyay istaaga reer Jabuutiyo war guri walbo reer Jabuuti ah hadaad Jabuuti dhexdeeda joogto iyo hadaad qurbaha joogto ilaahay baan kugu dhaariyay Fuad Yusuf Ali arabkaada ugu hiili ducadaada ugu hiili aqligaada ugu hiili waqtigaada ugu hiili Fuad u dhawaaq ha seexan Fuad سولي دحجيفا والله وان سيحان واي مالنتان أركي لا مانت قلبي هالمالي وكجيسا واي إلا هذا هو مسيه وعلى مداها قفك أن حشونين إلا هذا إسماعيل عمر قال لك أنا ينسى وحمد عمبو رقمية ما كلا يجعله وحوس كده يدعي جدك ريجبو تصير ضد دوران إنيهين وحوس كده يدعي ضد عن وحبت ترى إنيهين لكن لو سيها هيدتك مركي كعن أود إليهن والله شعبك أود بإليهن أنا وحن ديديا reer Jabuuti waan ogahay inay maalin iska qaban doonaan Ismaaciil Umar Geeli dulmigiisa laakiin waxaan diidayaa inay jabhada idin horkacaan waxaan diidayaa tii Soomaaliya ku dhacday inay kacdoonkiina isbedelkiina jabhada iyo qori inuu ku yimaado waxaan rabaa inuu ku yimaado danqasho iyo damiir aad ka danqateen Fuad Yusuf Ali dad kala mid ah كعدون شعب ما أنت كوها بونتا جيبوتي إنه كدعو إسماعيل عمر قال له هدانا ما أنت لا حسابته من قور ما الله حسابته ميسان مركا كل جن أقلدين السوليال أي نقطان مياه ربطان مو حد ربطان مركا لا يدين باب بإيو ورقوش واي إيمان لكن حنون با كهر ريو حنون كاو أتكيستا قوشينا واي إيمان حنون كا إلا أنت فؤاد لقسو دايو انت فؤاد لقى سو دايو reer Jabuuti waa seexanina
استاجا أو الدواق أو عاوية إلهي درتي وعاوية إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى ربي عزيزك الله مالك وحن ويدي سنيا ولكن مسلم كإلهي إنه كسو صارو حبسك سوليا حبس ما أهانه إلهي وحن كبر يا وعذابي إلهي إنه عذابك كسو صارو عيدان إلهي أهين وحن عذابته إلهي وحن كبر يا عذاب كل جليه إلهي إنه كسو صارو إلهي وحن كبر يا ولالك إنه عذاب كسو صار إساق يقار كبضن ورئيم ساف اللمذا ما أنت كدل من جبوتي إلهي ما يكون ري جبوتيو إمسا اللمذا ولالك ما أنت جبوتي كدل من ري جبوتيو مسيدان بالغوسي نولانيا صوماليا وحي بربرتي مركي دلمي رالي كنقطي بربر هاي إسقلينينا ري جبوتيو استاقا إلهي وكسو صار إلهو أذا أود له إلهي وكقبو ربي وكقبو إلهو إساقي إنت كلي كجرو ربي أذان قعمها كوتاقني إلهو أذيقان الضوامد أذنهي إلهو دعاي ذي ذا أقبل إلهو دعاي ذينا أقبل ربي وقلبي جيجي أوييو إلهو قلوبتي نبا كعسن إلهو ولالكا سودا إلهو حبسي كسار ربي وحبسي كسار إلهو كوى الظلمي كقبو إلهو كوى الظلمي كقبو إلهي أود هذا تص ربي أود هذا تص إلهو أذيقان لقاء أود بالنين إلهو أذيقان حيه وأنا جيريون إلهو أود أن أنا إسكاله إلهو ولالك مسلم كا الشهادرية إلهو الضوامد هذا كمذا إلهو أهيلي أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء وخلفاء الأرض أإله مع الله إلهي وكسوسار ربي وإله أن أذيقا هين مجرو إلهو كسوسار إلهو متك الظلمي إلهو متك ضد الظلمي أذيقا أهيلي إلهو ظالم كذا قبتا إلهو مظلوم كأهيلي ربي الظالم كقبو إلهو كقبو إلهو كقبو إلهو بدبادي ربيو إساقي إنت كلاي ظلما ربيو بدبادي إلهو دادك ريجبوتي مسلمين تا قلبي وناكسن الله ريجبوتي قلبي وناكسنا الله ريجبوتي نحريس بدنا الله ريجبوتي أذب بدنا الله ريجبوتي وناكسنا إلهو والله ظلمي دادك ظلمي كسر إلهو ظلمي كسر إلهو نكا ظلمي طريق عمر البشير مرسي إلهو طريق عمر البشير إلهو مرسي ورهاده سودان مياي بابأدي ويجرتا سودان عمر البشيرنا والله اسكا قبتي سودان مياي بابأدي ورجبوتيو الله إذن أبورتي الله إذن أبورتي الله إذن حسابين الله إذن كل دلنا دليسان عد كلو دلني ما إذن كل ماهن إن هذا إسحاص لكان إلهي با إذن كل رجبوتيو وهلا ولالك ورقف مسلمة أو الشهادة وجهك شرفت بدن مسلم كجعمها شرفت بدن حمنها شرفت بدن ولالك مسلم كقف كرالي كالنقضي إن سولي لجيو ظلمي وين بوجيستي رجبوتيو وان إذن جعلها رجبوتيو لكن ظلمي جاه جعلاننا waxaan idinku ogahay dad damiir la inaatihin waxaan idinku ogahay inaatihin dad naxariis badan wareey Jabuutiyow Soomaaliya waxay burburtay markay culimada la dilay ee ay daawadeen waxay burburtay markay jabhada hor kaceen US wax la mid 91kii ay jabhaduhu hoggaansameen laakiin aysan u danqanin culimadii war maxay u istaagi waayeen maalinta culimada la laayay laakiin qabiil bay u istaageen waxaad qabiil inaad u istaagtaan reer Jabuutiyow war كلي مالين بو إسبدل كإيمانيا لكن سصحة إسبدل كنا كوي ماذا إسبدل وإيمان لكن إسبدل صحة هيديني ماذا رجبوتيو إسبدل صحة هيديني ماذا وردوا لي نما لقوا منه ولا عزي بالقونا ولا ذا إلهي سبحانه وتعالى قفك إسكو ديبو إلهي قفك أبو عزية إلهي درتي قفك إسكو هاصدقو إلهي قفك أبو عزية وشرفتنا يقيمهنا شخص يوسن بابئن دقيهنا يا لغو شبين وحبريها سون نقنقنايي reer Jabuuti oo dalkiina sida Soomaaliya leedin ka yeelin annaga burburay Soomaalida qaar annaga burburnay annaga inagu dhacday war taariikhda dib u akhri Soomaaliya goormay burburtay dal walba burburay goormuu burburay waxay burbureen markay dadku raalli ka noqdeen dulliga waxay burbureen dadku markay raalli ka noqdeen dulmiga markay dulmiga iskaga raalli noqdeen markaasay burburaan war Ilaahay baa idinku dhaariyay marka Soomaaliya dulmiga u dhacayay hadday iska qaban lahaayeen ay culimada hor istaagi lahaayeen dilkooda dulmiga ay diidi lahaayeen tamaata Soomaaliya ka dhacday may ka dhicin lahayn laakiin Soomaalida maxay sameeyeen Soomaalida sidaas si ka duwan bay u dhaqmeen waxay u dhaqmo ku celcelinayaan nuqdada waa muhiim waxay u dhaqmeen si cajiiba marka ay ma aragtay intifaadadooda iyo halgankooda ay hor kaceen dad jabhada ah oo siyaasad u socdo oo madax rabo
qabaa'ilo markay hor kaceen markaasay dowladnimada iska burburiyeen laakiin shalay way iska burburin waayeen shalay way iska qaban waayeen shalay way iska sixi waayeen shalay way iska celin waayeen war eeg dadka qaar waxay kala garan karin shakhsi iyo dowladnimo war dowladda Djibouti ma Ismaaciil Cumar Geella war isku xishooda dowladnimada dhan Ismaaciil inta kala ma disable ba inta kala aqli ma lahan miya inta kala iskuul ma aadin miya inta kala aqli ma lahan miya inta kala cilmi ma lahan miya inta kala baaba miya Ismaaciil Cumar Geella marka laga reebo war Djibouti yaa la burburin war Djibouti yaa la baabi'in war Djibouti yaa loo duceeyay Djibouti yaa la badbaadi laakiin Ismaaciil Cumar Geella la iska qabto war ninka muslimka suuliga dhaxliga laga qabto war ninka la iska celiyo war ninka ummadda laga qabto eeg Djibouti yaa la idin kala reer Djibouti oo tafaraaruqa iska ilaaliya ilaahay wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu adinka tafaraaruq qabaa'ilaya la idin kala saarin dadka dictatorka ama kaligi taliyaha في عقلك او استعماله ايديولوجيك او استعماله فكرته او استعماله ما تقريسا marka uu arko xukunkiisa in loo yimid ee godkiisa biyo ugu soo galeen waxa ugu dambeeyo isticmaalo inuu dadka qabaa'ilo u kala daadiyo si qabaa'ilada qaar ay ula saftaan isaga ka dambana inay wax jiraan ma rabo war xitaa hadaad Ismaaciil Cumar Geella faraha ka qaadaan boqolka sano soo socdo Djibouti oo wanaagsan idinkaga ma tagayo run baa idin sheegaya waana dhaqanka dictatorka idinkagama tagay Djibouti war ilaahay baa idinku dhaariya haddaan qaldanahay qabta ma waxaad rajaynaysaan Ismaaciil Cumar Geelle inuu doorasho intuu idin qabto kaalay idin dhoo isagoo raali inuu xilka ka dago taas ma sugaysaan Ismaaciil Cumar Geelle intuu doorasho idin qabto kaalay idin dhoo xilka waan iska dhiibay maad rajaynaysaan wallahi waad hurdaysaa haddaad taas ku riyoonaysaan waxaad rajaynaysaan ninka maanta ninka miskiinka suuliga dhex dhigay xil jacayl dartiis war xitaa xil ka haay laakiin xadgudubka joojiyo fursadana dadka waxa ka siiyo intaas waa inta la weydiinayo laakiin waxaad rajay Ismaaciil Cumar inuu idin cadaalad falo Ismaaciil intuu doorasho idin qabto oo idin kaga tagay Djibouti oo qayb dadka ka mid noqdo oo iska dhiibo maya wuxuu iska dhaadhiciyay kaligiisa ma waa dictator ko dhan wuxuu iska dhaadhiciyay reer Djibouti dhan aqli inaysan lahayn inuu isagu aqli badan yahay isagu inuu aqoon badan yahay waana taas laftirkeedaba dambi ah iyada laftirkeegaaba mutakabbirnimati ugu weynaa kibir qofka ugu weyn mid gasho waa inuu aamino dadka kale dhan inay baaba yihiin inuu aamino dadka kale dhan inay eber yihiin isaga la'aantiisa inaysan jiri karin meeqa wadan baa dictatorkooda baxaa maanta jiro laakiin waxa lagu kala duwan yahay waa qaabka loo wajaho sidee u wajahaysaan marka reer Djibouti oo maanta waxaad haystaan fursad weyn oo aad noloshiina wax uga bedeli kartaan dalkiina aad wax uga bedeli kartaan idinkana wax iskaga bedeli kartaan maxay tahay waa markaad Ismaaciil Cumar Geelle iska qabataan oo runta u sheegtaan warniyow dulli kuma noolaanayno ninkan inagu naga mid yahay walaalkeen muslima ilaahay baana walaalay kow la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah baana walaalay waa kow labo Djibouti nimada idin walaalaysay jiirka Soomaalinimo iyo maqaarka Soomaalinimo idin walaalaysay qof kasta oo yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle yaan laga hadlin ee Djibouti hal la daayo sideeda ha lagu daawado wuxuu raali ka yahay in dulli reer Djibouti ay ku noolaadaan reer Djibouti inay dulli ku noolaadaan buu raali ka yahay war ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ha ka qabto ilaahay subhanahu wa ta'ala ninka dadka ha ka qabto ilaahay ninka muslimka walaalkeena ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay dhibka ka saaro wareer Djibouti hadda dalkiina jacaysiin oo aad rabtaan Djibouti inay weligeed idin jirto wallahi culimadu dhan waxay isku raaceen oo la isku waafaqsan yahay khilaafi ka jirin dawlad muslimnimo sheegto ama hogaamiye muslimnimo sheegto oo cadaalad darro ku dhaqmayo ayaa burburi og ayaa baabi og waxa jiri og weligeedna baaqi noqon og quwadna yeelan og dawlad aan muslim ahayn laakiin cadaalad dhexdeeda ahaatay Allahu akbar cadliga meesha buu gaarsiisay ilaahay agtiisa qofka salaadiisa cibaadadiisa ilaahay baa ku leh laakiin qofka waxa dadka kala dhaxaya waa macaamilkiisa iyo waa dhaqankiisa aniga waxay qusay waa sidaad ila dhaqanto iyo sidaad iigu wanaag fasho haddaad cibaado badan tahay salaad badan tahay adigay ku taala
adiga ilaahay bay idin taala subhanahu wa ta'ala laakiin macaamilka waa wax qiimo badan ummadda sidaad ula macaamisho reer Jabuuti waan idin jeclahay reer Jabuuti waan jeclahay waa rag qiimo badan waa dumar qiimo badan waa dad damiir leh waa dad dadnimo leh waa dad naxariis leh waa dad muslimiinta jecel waa dad diinka ilaahay jecel waa dad iyaga is jecel laakiin waxa idin dul saaran musiibada maanta iska qabta maanta musiibada idinka qabta iska qabta ilaahay baan idinkaga baryaa subhanahu wa ta'ala cizi ilaahay baan sharaf idinkaga baryaa ilaahay baan idinkaga baryaa mugdi baad ku jirtaan ilaahay mugdiga idinka saaro ilaahay baan idinka baryaa inuu ilaahay indhihiina ku soo jeediyo xaqa ilaahay baan idinkaga baryaa inuu idin tuso awoodiina ma aragtaane wareer Jabuuti awoodiina ma aragtaan ilaahay awoodiina ha idin tuso awood baad leedihiin Ismaaciil Cumar Geelle awooda hadduu yeeshay oo sidaano dhan idinku xukumaya inta soo sano oo sida idinku xadgudbaya ilaa aad ogolaateen in suuli la idin dhaxdhigo idinka imisaad awood leedihiin reer Jabuuti oo dhan isku tashtaan oo ay meel ka soo wada jeestaan waxaad aaminsantiin kulligiin inuu idin baabi'inayo adinku dhan baabi'aysa miyaad aaminsantiin ilaahay ha idinka qabto idinkana awoodiina Allah idin tuso ilaahay Fuaad Yuusuf Cali dhibka Allah ka saaro isagay inta kala ee dhibaatada ku sugan rabbiyow innagana carada ka dhalanaysa dhibka loo geysanay walaalka muslimka ilaahu innagana nagu ciqaabin ilaahu kuwa u hiliyay naga yeel ilaahayow dulliga ka saar ilaahu dulliga ka saar dadka muslimiinta ilaahu ninka dadka ka qabo ilaahu walaalka muslimka cadaalada si ilaahay baan weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala kulligeen inuu cizi iyo sharaf nagu nooleeyo ilaahay baan weydiisanaynaa dunida islaamka oo dhan dhibta ilaahay inuu ka saaro qof kasto muslimiinta dhib ku hayo ilaahay dhibka ka saaro ilaahay meel walbo dunida muslimka kamida Soomaaliya Djibouti meel walba muslimiinta joogan ilaahu dhibka ka saar ilaahu dawladnimadooda xooji ilaahu dawladnimadooda xooji ilaahu dalkooda nabad uga yeel ilaahu dhibka ilaali ilaahu dadka dhibaatada ku sugan kuwa xanuunsan kuwa la bahdilayo ilaahu bahdilaada ka saar ilaahayow rabbiyow ilinta midka la dulmay ee madluumka rabbiyow ma moogid ilaahu gargaarkaaga u soo dadaji ilaahu gargaarkaaga ma fogo rabbiyow gargaarkaaga ma fogo ilaahu gargaarkaaga u soo ilaahu gargaarkaaga waa qariib ilaahu waa u dhow yahay ilaahu gargaarkaaga u soo dadaji ilaahu walaalka dulliga ka saar ilaahu dhibka loo geysay adoonka muslimka ilaahayow jawaabtiisa tus ilaahu reer Jabuuti badbaadi ilaahu dhibka ka saar ilaahay haydin barakeeyo dhammaantiin waan idin jeclahay ilaahay cizi baan idin weydin war hooy sharaftiina muujiya wanaagiina muujiya reer Jabuuti oo kaca war hadaana maanta la kicin waxaad aqligiina idin tusaya Ismaaciil Cumar Geelle intuu idin soo istaago oo uu idin dhaho reer Jabuuti oo xilki waa kan madaxtinimadii waa tan anu waan iska tagay ilaahay taas wax kama agtiisa ilaahay qalbigiisa taas ku tus ilaahu qalbigiisa ku soo rag ilaahu aqligiisa uu keeni waaye ilaahu aqligiisa tus war ogaada rabbi subhanahu wa ta'ala agtiisa waxaad qiimo ku yeelanaysaan markaad idinka isku naxariisataan irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa war midka walaalkiina u gargaara u naxariisa dhulka ilaahay baa lagu dulmay dhulka ilaahay baa sharaftiisa wax lagu gaarsi ilmihiisa ooyayo xaaskiisa ilmaayayso inagii baa la ilmaayayno inaga la murugaysan qof kasta oo damiir leh ayaa la murugaysan rabbiyow dhibta ka saar warooy ducada u wada dadaalka u wada reer Jabuutiyow dariiqa Jabuuti meel walba ee Jabuuti xaafad walba Jabuuti kamida waxaan rabaa reer Jabuuti inuu qofna ka seexan banaanka soo istaagtaa ilaa walaalka xabsiga laga saaro war dadku way baqayaan war xitaa qurbi joogti cabsanaysa subhanallah war xitaa qurbi joogti baa baqanaysa qurbi joogti baa xitaa baqanayso Soomaalida qaar kamida xitaa baqanay qaar baa business kula meelaha qaaba ganacsi kula adduunyadoodii bay u baqayaan war ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala war Ismaaciil Cumar Geelle waa qof uu tagaya laakiin Jabuuti ma tagayso waa dhul dadka ku noolna waligood way isdhaxlayaan arlada waa la iska dhaxlaa qof reer Jabuuti uu dhalan uu jiri uu joogi ilaa saacada qiyaamaha reer Jabuuti way joogayaan wayna jiri doonaan Ismaaciil Cumar Geelle duu samaanta tagin xitaa geerida wadaysa malaga wadayo geerida wadaysa malaga wadaya waqtigiis uu tagi ani waa tagi adigu waa tagi kulligan waa tagina laakiin cizi sharaf lagu tago inta la nool yahayna cizi sharaf lagu noolaado sharaf iyo qiimi lagu noolaado ilaahay haydin cizeeyo war hooy qiimigiina sharaftiina ku noolaada allah idin waa idin soo ducaynaya insha Allah waqtiga idinku yar
waqtiga igu yar insha Allah waa idin jeclahay ilaahay dartii baan idin jeclahay Jabuutina way guulaysan maalmaha soo socda haweenada soo socda guushi Jabuuti baan sugaynaa insha Allah mana seexan doono mana joojin doono ilaa walaalka laga soo daay xabsiga iyo dadka kale dulman Ismaaciil Cumar Geelna dadka reer Jabuuti runta u sheegay kaligii ma ahan meel walba qof Soomaali uu ku dulman yahay kama aamusi doono insha Allah ta'ala ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay ha idin ciseeyo Allah ha idin badbaadiyo waan idin jeclahay kulligiina garab nagu siiya in maaragtay walaalka iyo dadka kale dulman loo hiiliyo carabkaada ugu hiili waa xadiiska nabiga kaleey salaatu salaam hadaad awoodo gacantaada ugu hiili hadaad awood hadaadan awoodin qalbiga ka nac warmaanta waad hadli karaysaan internet baad haysataan Jabuuti hadaad joogto banaanka soo istaag hal lagu xiro walaalkaas waa la xiray maxarig baa xarig ku dhaama maalin baad dhimanaysa wallahi ajir baad ka helaysaa war anaga hadda intay musiibada dhacday ee COVID-19 coronavirus intuu dhacay qaarkeen 3 bilood guryahan iskaga jirnay wax xabsi guri baan ku jirnay ma xabsi baa xabsi dhaama banaanka inaan soo baxno waan la diin amar ilaahay baa soo degay أمر إلهي باسودقي والله قبرها جبوتي بها اللي يسوي حيتري هذا الآد يجي عجبيه كو هذا الشيء وحيتري مركا والالكا أو هذلي أسوليجا وكل حرنا صوا هذلي وحي كدم بي لبمر بالجرير لقدرين بيتري جبوتي لبمر بجبوتي سدا وجرير تج تاس وتصالو هدان ظلمي لقد يدين هدان ظلمي لقد جوابين هدان حق الله يلينين تاس متكدرن بإيمانيس dowladnimaduna waxay baaba'daa ma ahan dadku markay hadlaan war eeg hadii la hadlo ee la dhaho war dadka tiida war dadka ka leexo ma dowladnimadii baa burburaysa ma burburayso waa calaamadaha dictatorka dad buu adeegsadaa qolo magaalada gishtaa balaayu fidiya dad kun war wax walba isticmaalaya si dadka qalbigooda cabsi loo geliyo cabsi baa la idin gelin qalqal baa la idin ku beeri maxaa la idin leeyahay taqana sida Soomaaliya idin ku dhacaysa dalalkii kala eeg war hadda waxa idin harsan maanta waxa idin harsan isha Great Djibouti maxaa idin harsay hadii midkiini in yar hadla suuli la dhex dhigayo wasaqda afka ay ka galayso oo san cibaadeysan karin ilaahay caabudi karin ilaa ninka cibaadadii buu ka hor istaagay inuu ilaahay caabudu ka hor istaagay ilaa suulimiya ilaahay lagu caabudaya masuuli baa ilaahay lagu xusaya cibaadada ilaahay buu ka hor istaagay war ma xishoonayo qofku cibaadada ilaahay buu ka hor istaagay wuxuu ka hor istaagay damiirkiisii buu dhulka galiyay shakhsiyadiisii buu bahdilay sharaftiisii buu meel gaarsiiyay karaamada ilaahay uu siibuu ka qaaday maxaa idin haray marka maxaa sugaysaan marka haddii inta la idin gaarsiiyay maxaa sugaysaan reer Djibouti war ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin badbaadiyo ilaahay haydin ciseeyo ilaahay haydin karaameeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaato culays عسري oo dhan Allah idinka qaado yusri degdega Allah idin soo dadajiyo laakiin idinkana danqada oo jawaaba oo u naxariista garab u muujiya reer Djibouti Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaaladan uu idinka saari waa idinkaga horreey waad ka gudbaysaan laakiin Ilaahay uu idin eegaya subhanahu wa ta'ala Ilaahay uu idin eegaya subhanahu wa ta'ala Ilaahay uu idin eegaya Rabbi waxa uu eegaya sida qaarkeen aanu jawaabayno sidaynu u hadlayno war maanta waxa lagu jiraa information age xilli wax la qarin kara maahan isaga markuu hadlay ee uu yiri walaalayaal aanu suuliga ma seexda waxa la igu haystana waa maxaad u hadashay maxaad xaqaaga u sheegataa la igu haystaa suuliga baa la idhigay naftiisu banaanka soo dhigay wuxuu diyaar u noqday wax walba inay gaaraan laakiin uu hadlo si dadka isaga ka dambeeya u noolaadaan adna hadal dadka ka dambeysay ay u noolaadaan banaanka soo istaag sida jiilka dambe sharaf ugu noolaadaan cizi ugu noolaadaan banaanka soo istaag jiilka dambe sharaf ku noolaadaan war wallahi sharaf aan ku noolaano war ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala war nin dalkiisa u shaqeeyay dadkiisa u shaqeeyay oo muslimo walaalka in la bahdil raaliha ka noqonina war ilaahay ka xishooda subhanahu wa ta'ala war rabbi ka xishooda subhanahu wa ta'ala war walaalka u isaaga dal hala burburi cidna ma oran Djibouti hala burburi cidna ma oran Ismaaciil Cumar Geelle alla iska qabto hadalka waa fasiix waxaad aaminsantiin Ismaaciil Cumar Geelle kaliya inuu adduunyada Djibouti maamuli karo Djibouti xukumi karo war hadduu Djibouti u taray cadaalad buu u tari lahaa baahi bay u dhimanayaan dadku xaafadaha qaar haddaad aragto Soomaaliya oo intaa burbursan xitaa wasaqda ma dhex taalo war ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala ninka dadka cadaalad ha siiyo ummadda hadaayo Soomaalida aad leedihiin way burburaysaa sida Djibouti ba Soomaaliya idinku dhacayso Soomaaliya waxay burburtay marka culimada la dilay ee dadka Soomaalida aamuseen Soomaaliya waxay burburtay markay Soomaalidu qabiil
horboodeen oo ay raalli noqdeen 91kii jabhadeen ay hogaamiyeen 90gii raalli ka noqdeen laakiin marka culimada la dilay ee aamuseen reer Jabuuti qabiil miyaad u dhaqanaysaan mise islaamnimad u dhaqanaysaan ma reer Jabuutinimad u dhaqanaysaan qofka diirkiina leh walaalkiina muslimka diirka Soomaaliyeed leh u danqada Allah idin barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin cizeeyo Allah idin badbaadiyo Ilaahay dartii baan idin jeclay Jabuuti baan dib la rabin Soomaaliya baan dib la rabin ummadoo dhan baan dib la rabin laakiin sharaf inaan ku noolaano ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barya mar kale aan soo gali doona insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin barakeeyo mar kale iyo macluumaad badan anagoo wadno ayaan soo gali doona laakiin kulligiin qof walba meeshu awoodaha uga hiiliyo sidoo awoodaha ugu hiiliyo insha Allah fuaad waa mid laakiin malaayiin baa xiran fuaad waa mid malaayiin baa la bahdilay fuaad waa mid malaayiin baa hadli karin fuaad waa mid malaayiin baa karaamada laga qaaday fuaad waa mid malaayiin baa ooyeyso fuaad waa mid malaayiin buu u hadlay fuaad waa mid malaayiin buu u dhawaaqay fuaad waa mid malaayiin buu matala fuaad waa mid malaayiin buu u dhawaaqaya codkooda ku hadlaya Allah idin cizeeyo barakallahu fiik بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته